lacagaan ku siina codkaaga iirid waa balaaya codkaaga iirid lacagataan qaaday hor ilaahay ka cabso qofkaan meesha la keenaya oo mas-uulka waxa weeye ummadaas ayaas mas-uul ka noqona dhibkaas keena oos ugu kaalmaysa dambiga qaybaas ku yeelani qofkiis khayr u malayni oo amuu ilaahay diintiisa wax ka qabta as leedahay codkaaga sii waa la jilbixiri waa la daxyi waa la marjin qasab baa lagu rari maalima kadib xariguu baran hogaanku kaa ogolaan maalima kadib waaba la fadhiisan ilmaha la saari maqaarkaa la saaran rarkaa la saari asagaa fadhiisaa la leeyahay waa fadhiisanaa waa istaaga nafta waa sidaa oo kale gibigeedaba laylina caynkaan oo kale u baahanta cibaadada in loo layliya cibaadada in lagu layliya u baahanta war adiga baashi way ku dhibaysaay bara marka hore inaad 2 ragca markaad saaxana dukatid 3 ragca dukatid inaad weyse ku saaxatid inaad adkaar adoon akhrisan masjidka ka bixin inaad maalintii bartid naftaada wax yar oo sadaqa xoolo badan aad haysanin sadaqada waa yaraan kartaa waana balan kartaa wax yar oo sadaqa inaad la baxdo irida badan oo kaa xirnaa ku furmi wax badan oo ogeen miskiinka oo aan laga waraynin oo miskiin oo ogtahay oo duruufaysan wax yar inaad hoosta ka siisid oo dadka ka warqabin 2 ragco oo dadka hurdaayeen inaad soo toostido ayba badanini dadka oo hurdaan wasallu bil-layli wan-naasu niyaam dadka oo hurdaan inaad 2 ragco dukato isku day maalintii haddaas quraanka ilaahay garanaysid inaad juz adoon akhrisan as dur aadin oo shaqo aadin isku day haddaa quraanka ilaahay garanaynin maalintii ayadda oo kitaabka ilaahay inaad barato oo gaaban isku day masjidka tag ayadda oo kitaabka ilaahay oo gaaban inaad barato isku day haddaa darsi meel laga akhrinayo ay jirto darsiga asaga inaad tagto nafta ma ogola oo kula dagaalamay darsiga inaad tagto dhageysata isku day qofka markaas dadaala marka oo sidaa u layliya nafta oo la dagaalama oo wadooyinka wanaagsan ku hogaamiya marka dambe naftiisa khayrka jeclaani nabigana xadiidkiisa waxa way sallallahu alayhi wasallam walaw aad xoog badneen لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قفكو حضرك مركز دم وحزقارة هير دينتي لا وحي أباس نفتيس وقدمي ونفتيس ودمناي أو دينتي وحي منكر أصلا قال لما وسكعروناي منكر وكعرون طاعة إلهي وكفرحي خير كاس قربوا النقنا شرطوا لنا سريبا waxaan lama soo gelin kara meeshan waa munkar waan ka hortagno leeyahay dadku qalqaalin ka waranadas dhaqanka umada qaar lagu yaqaan kala markaad waxaan aragto waxaan ma dadka laga reebo hadaa tira hadalkaaga intaas noqdo waxtarkaaga intaas noqdo waxa saar lama yeelo war adi maxaad hada soo dad matid waxa qiimo iskaga qaaday waxa waaba aragtay qofka kale inaas baarkina la arkay ma istaagtido waxa ayaga war waxa waa munkar ka jooga ma tira warniki garab ku siin kara adu malayni kaali waxaan xunaan iska reebna ma tira xalaga yaaba meeshan dad muslimiin ah noo dhiseen markaskan diiniga masjid galaasiya jiif hatta waxa uu inay ku jiraan dhici karaysa dadka muslimiinta وكو أديك وكل أوري الله راتنا حولنا حولا إلهي سي أي جنة إلهي كراتنا يسوما حولا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة حيسمينا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أنك ما بنقانا حولا جنة لو كتاب ما بنقانا حولا جنة لو كتاب ما بنقانا وحن لنا نمك عرب الديجري مساجد ما ينودسان جلاسي ما ينودسان معلمين تان ما يلعقوا قرآن يا أخي عرب جنة يربان سيدا الله كل هذه كانت سجنة مربت أو بيع مشتركين أو دت كين حول الله ياو
war wallaahi xoolihiinna kaambeenka unaas ku bixinaysaan oo kursi in lagu soo galo unaas ku bixinaysaan ilaahay waa idin su-aalaa birri. markii ilaahay diintiisa ka jeesateen oo daacadii ilaahay ka jeesateen oo diinta ilaahay waxba u qaban weydeen ayaa ilaahay wuxuu idinku ciqaabayaa xoolihii asaga uu idin siiyey oo jidka ilaahay ku bixin weydeen macaasi inaas ku bixisaan waa ciqaab ilaahigiisa. ilaahay macsiyadiisa inaas ku bixisaan oo dad lagu laaluusho oo codka lacagaan ku siina codkaaga iirid waa balaaya. codkaaga iirid lacagataan qaaday hor ilaahay ka cabso. qofkaan meesha la keenaya oo mas-uulka waxa weeye ummaddaas ayaas mas-uul ka noqona. dhibkaas keena oos ugu kaalmaysa dembiga qeybaas ku yeelani. qofkiis khayr u malayni oo amuu ilaahay diintiisa wax ka qabta aas leedahay codkaaga sii. hal shay ummaddaa iska ilaaliyeen islaamka fitan bay keeni. qofkii asaga doorasho u taagan horta qofka muslimka ah inay dadka la soo baxaan qofka mas-uuliyadda qaadaya ayaa wanaagsan oo ayaga isa soo bixinin. ayaga inay isa soo bixinin oo dadka muslimiinta la soo baxaan oo hebel aan anfacay yidhahaan sida wanaagsan sidaa ayaa yahayd. laakiin waa dhacday wixii dhacay ha dhacayna wixii dhacay ha dhaceena way dhacday. hadday dhacday dadka waa laba nooc. dad inay wax boobaan oo adduunyadii iyo ummadda xoolaheedii xuquuqdeedii boobaan doonayiin iyo qofaa is leedahay qofkaan ilaahay buu uga cabsan xoolaha ummadda. xuquuqda ummadda ilaahay buu uga cabsan ilaahigiisuu ilaalina isla xisaabtama qofaa is leedahay. dadweynaha ma ahayn marka inay bannaanada istaagaan oo buuqaan oo xiisado iyo waxaan loo baahnayn ay sameeyaan meesha kuma jirto. waa fitna iyo balaaya. qofka adiga aad doorani codkaasuu kugu leeyahay kursigaaga koraagaaga ugu rid ilaahayna kaga cabso. laakiin waxaan xoolaha laisku gadanayo oo shilimaadka laisku gadanayo waa fitan diinta khilaafsan balaayo wadata ummaddana balaynay ninka samaynayana balaynay. ilaahaygeena aan kaga cabsana marka allah idin barakeeya. maraakiistaan barakaysan aan ka wada qayb qaadana. haddii madarasa meesha laga fura madarasada qof kasta oo shilin haysta wax yar haysta ama wax badan haysta maamul ha loo sameeyo inaas wax ku tara isku daya. qof kasta oo shilin haysta ma xoolaha inaas wada bixinayo inaas wax ku tarta isku day. qofkiin shilin haysanin inaad si kale ula tacaawunaa isku daya. ilmaha in meesha la keeno diinta ilaahay lagu baraha la isku daya. khayrkaan iskugu kaalmayna shartan aan iska qabanna. allah idin barakeeya.